sideed daanina isku haybta ah ee isku qabiilka ee isku jifida ah ee halka ay soo fariistay habeen iyo maalin dagaalka ula tagay Axmed Madoobe maxaad noola rid weydo Axmed Madoobe u caayay war dhageystaan aan u teedii sheegay ilma xayawaan kismaayo waa laga soo baaxay xilligii qowleystadu joogtay xilligii timo dheerta lagu dili jirayna ina ciyaar jaclo waa la soo dhaaf haddaad baahan tahay oo gaajo ku hayso oo sabool tahay ilaahay baa wax la weydiistaa kismaayo Axmed Madoobe faataxa kuma qabsan al-shabaab ka kiciyay oo dooxatadii aad gabdhaha leen jiray uu ka kiciyay oo al-shabaab ka kiciyay oo daalimiintii uu ka kiciyay kismaayana maanta waa nabad kismaayo maanta waa nabad dekadana adan nin waliba dekad buu haystaa nin waliba dekad buu haystaa dekada haddii Axmed Madoobe uu haysto oo madaxweyne ka yahay madaxweynaha uu ka yahay ilaahay baa uga dhigay wuxuuna haystaa 3,000 oo nin oo awal qorigii qumanaale uma tagi kartaan oo uma dhawaan kartaan oo agtooda ma mari kartaan oo dooxato waa dhamaatay dooxato dhamaatay saaxib gabdho la kufsadaa waa dhamaatay taariikhdeedii ku jirtaa ina ciyaar jaclo taariikhda hoodan Saleebaan diiriye gabar darwiishada oo aad aargada ku dishay oo aad tiraadeen meedkeeda la qaadi maayo aad tiraadeen nin raga waa la dilaa xabad waa geeyda wariya yaa miskiin nin raga xabad waa geeyda nin raga waligiis la dili jiray laakiin ragiina yiri gabadh in adeertooda oo nin tuugo dib jiray intuu yimi qaad macaan ka qaato oo tiri qaadkayga yidhi oo naaska xabada kaga dhufatay oo aad disheen oo aad daawanayseen oo waliba intuu lugaha dul saaray anu haddaan been sheegayo hal soo weydiyo reer Kismaayo taariikhdaas waa caan aragada taariikhdii ka dhacday waa caan gabadhii inta naaska xabada laga dhuftay waxa weeye meedkeeda liiri la qaadi maayo kuwii sameynayay ina ciyaar jaclo adiga iyo kuwa kula socda bay friisiya oo qabiyaalad war dawladii siyaad barre Allah u naxariisto noociina soo miran baa dumiyay oo umada siyaad barre ku diray oo qaranka dumiyay maalintii la soo weeraray siyaad barre ee siyaad barre xabadu isqabsatayna daaqadaha ka wada boodeen ilma xayawaan hadduu gaani yahay Allah u naxariisto iyo hadduu canjeexa holan joogay yahay ee korneelka iyo kuwii ugu waaweynaa saraakiishaha waxay ka boodeen daaqaday ka boodeen dadkana idinka ku diray ogaada dadkana idinka ku diray ina ciyaar jaclo noociina soo miran oo fayrisa oo hadda farmaajo raba dadka inay nacsiyaan oo umada ku diraa ninka miskiinka ah siciimka ee dalkii dadka doonayay inuu qabto wallahi idinka ku diray siyaad bare dixiin buu ahaa oo ibn xalaal buu ahaa oo geesi dhalay buu ahaa noociina soo miran baa wallahi ku diray oo dawladnimo cid walba u bahlageliyay oo meesha dhan saa isugu weeraray maalintay bilaabatay oo xabad bilaabatayna daaqadaad ka buuteen hal nin kuma harin baa kursiyaad bare Allah u naxariistay hal nin korneeladii generaaladii ugu sareeyay ayaa ka cararay oo jaanta rugtay abaan lama lihid wanaagna ma lihidin sunba ku tiin dadkana idinka qaranka ku dira dawladnimada idinka nacab umada Soomaaliyeed idinka kala horgeey gobolka gado garbaharey waa dulmanta war reer garbaharey haday dulmayin anaga la duuban haday dibayin umada Soomaaliyeed oo dhan baa la duuban haday laakiin noociina sa magaca ka xumaynaya noociina ayaa magaca ka xumaynaya reer garbaharey sheekh beelay oo shariif beelay oo miskiin beelay oo maqadaama dirgaan beelay oo mid daalinay oo wadaad beelay laakiin wallahi idinka magaca ka xumaynaya muqdisho kun qof baa lagu waayay waadii qayla dhaawa waray dhijiray maxaa ku aamusay maxaad uga hadli weyday maalintii qaraxii Soobe 14 October hal maaso iyo hal hees leedahay ma la maqlay waliba xildhibaan baad ahayd Soomaaliyeed adeer xildhibaan Soomaali war waa arkayna wadaniyada hadii qoys leeyahay iyo qaranka hadii qoys leeyahay in kala ogaan doona Kismaayana waa dooxatana ma joogtaniyo bare hiiraale ma joogo no more baa kuri dumar la laayaniyo iyo gabdho la kufsado waa dhamaad Axmed Madoobe car u tag wakaas wallahi wiilal waxa joogan qoriga qumanaawe kuwale baa joogo taga wakaas hadaad rag tahay gabar damban la Kismaayo gabar lagu kufsado miyaa maqashay Kismaayo gabar lagu kufsado miyaa maqashay dad baa lagu laaya miyaa maqashay wixii ina ciyaar jaclo waxa doonaysa timo dheerta ku dili jirtay Kismaayo inaad maanta ku dishid wallahi ma shaqeynayso billahi taala inaana shaqeynin timo dheertana waa la dhowraya Axmed Madoobe biyuha gacmuhu ku siiya biyaha adiga iyo Cabdiwaliyulka garbaharey fadhiya ninka meesha way laga kiciyaa Kismaayo ka daweynaan qabsanaa
وين سيدا يلا كسمايو برواق على شيء يا صح برهي أنا ما أنت متشوقو ضحتنا متشوقتو تمدير دنبول والله يا أنا متشوقتو أدوغنا إذا كان كسمايو ساعات الكافرست يدكدي يقبله اللي ينشروا له كفسنتري يتمدير تلدلي شري يمربى وضدي الحين شري وأروح أسوي شو ما هذا صح أما دلاع أما قرحة أما سيدا نبني لك وقرحانيو عالمك يا قرنك يا وطنيتنا ولكن فيروس يحنون باكو هاجرتين أو عام باكوتين مدحوينه ماذا وقولنا ذاك كي ماذا بينات فشيلسان أو عيب مدحو سلطان أمة الصومالية كوركنتان إذا كان عام كو هاجرين كسمايو إنه حبض ويدا ماتي أدونك مات فوت يا برلمان يا عيدا يا نظام يا دستور يا كلا ضمبين باماشا كتشرو كشقيني أحمد مضوب هدو حوين هاي يهدو في عين هاي نظام بوكيمي عد بوكيمي عد بونك كتجيه ماشي نو مور قبيلات يشتكي ترسل كسماينا والنبض إلى عيار شعلو هذا ساوي ويل هاي هذا ساوي ويل هاي بقى كسماينا والنبض نو مور ضحته نو مور ضحته بانكور ويدم ما تضحته ينكي شكل اللي جد ضحته ينكي تشوبا dadka suqaari jiray no dhamaatay dibna wallahi soo noqon mayso adeer wax ku sheega abadu waaqdaada iyo meelahaaga iska iimaansadii dhulkaaga iska iimaansadeer meeshan nabad iyo nidaam iyo dastuur iyo kala dambeyn baa ka jirtay waxa maxaa abadu waaqba galmudug bay ka tirsan tahay dhibaatana kama jirto madaxweyne ku xigeen waxa ka in reer abadu waaqe tan Kismaayo nin reer Galbeed ka maxaa Kismaayo ku jaban haddayna raadinayeen inaad dadka suqaarisaan oo gabdhaha timadheerta dishaan maxaad raadinaysaan ka raadinaysaa galmudug dhibaato ma jirto waa idinkaa jooge Kismaayo dakadib dhuxushu dhoofinaya dadka nool ayaa rabtaa inaad dhoofsaan oo timadheerta rabtaa inaad dishaan oo inaad dadka suqaarisaan baad doonaysaa war waa inoo dagaal baa ku waana inoo laba